السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال إذن أهانتين بحلكني ورويال تي في حرنتين كلنا هاي مقالة مقدشو waxaadna ku soo dhawaataan warka caalamka waxaana idin la diyaaraa anigoo ah Amira Sheekh Maxamed Kashka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in la mamnuucay in la dumiyo dhismayaasha qadiimiga ee ku yaala magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliinta sare Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay awood u yeelatay inay mamnuucaan in la dhiso dhismayaasha qadiimiga ee ku yaala magaalada Muqdisho waxa uu carabaabay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir ay kamid tahay degmada Waabari Shibis iyo Xamarweyne iyo Xamar Jajab iyo Cabdicaziis adigoo aan meel dheer fiirinin magaalada Xamar waxa arkaysaa masaajid 900 sano jiro oo intii la dumiyo mid yar casri ah la dhisay la leeyahay yani waa dhibaato weyn xukuumadda waxay ku talaabsatay inaan mamnuucno in degmooyinka Xamarweyne iyo Shibis iyo Xamar Jajab iyo Waabari iyo Cabdicaziis laga mamnuuco in la dumiyo dhismo aysan ka warqabinin wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare